السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وعصبك وأولي لتشوقي دمانتين السود وهذا ومركلة مقال عصب. المقال كان مقال مهم أنا أقول تلقى لي المها تشيرات طبعا بلاد إلا وحي ككوريو. مقال كان عروفته وحي كساعد دونا ميسان كودا سهر سرعة إنه أكرليو مسكح عنو جاجن إنه كرليو مسكح أكتف وآذوين firfircooni u sameeyo kortana badanaa waxyaabaha caruurta ka saacido maskaxda in ay kororto waxbarasho ahaan hadal ahaan iyo cunuga caqligiisa oo sameeyo horumar waxaa kamid lowska waa miro qani ah oo fitamiino badan ay ku jiraan biliis haday ku tahay markii wada ay timaado subscribe iyo saar awlada ila joogtan ilaa garay muuqaal like ay saartiin waxyaabo badan ay iga caawinaysaa si muuqaalka meel sal uu gaaro inta sadaa ka tilaabsado meeshan waxaa noo yaalo lows oo kala nooc ah lowskan waxaad ka heli kartaa ay supermarket haddii aad weydidna mushkilo ma lahan waxaad ku bedeli kartaa lows Soomaaliga caadiga ah iyo sabiibka mar walbo aad wax weydid bedelkeeda ayaad helaysaa lowsaskan fitamiino badan oo waxaa ku jiro ilmaha maskaxdooda iyo lafaha kor u qaado dhismahooda waxaan rajeynayaa hooyo badan inay ka faa'iido lowska awalkii hore waxtarkiisa aad looguma baraarugsaneen balse hadda waxaa moodaa aad u weyn hooyooyinka inay u fahmeen intaasna waa inta ay heleen warbixin dhameystiran oo lowska ku saabsan waxaan rajeynayaa guri kasto inuu yaalo lows kala nooc ah ay helaan gabdhaha meel walba ay joogaan haddii ay raadiyaan badanaa kuwa dibadda way helayaan kuwa wadankana supermarketyada ayaa la keenaa lowska waxyaabo badan oo fitamiino ah ayuu leeyahay waxa kale oo soo qaadanayda hal xabo oo tufaax ah waad soo jarjaree markaad soo jarjartid waxa kale oo soo qaadanayda strawberry 3 xabo waad soo jarjaree asagana tufaaxa iyo strawberry-ga waad dhaqaysaa digsiga ku shubanee dabka saare biyo waxa ku darsanayda hal bakeeri oo haafkiisa ah markay isku soo uumtoobaan oo si fiican ay isugu soo karaan ka bacdi ayaa la shiidayaa aduu rabbi idmo waxa kale oo ku darsanaysaa lowska iyo tufaaxa iyo strawberry-ga intaas ayaa isku darsanayda ma fahamtay marka waxyaabo badan oo fitamiino ah ayaa ku jiraan oo ilmaha maskaxdooda iyo lafahooda wala miisaankooda kor u qaadayo hooyo kastana aad u caawi doono waayo waa hooyo caawiye ama ilmo caawiye lowska markii loo sameeyo qaababkan kala duwan waxyaabo badan oo fitamiino ah ayaa markasto kama maarmaan caruurtaada in aad siidid qudaarta kala duwan fruudka kala duwan marba noocaad u sameeyid maadaama ay yihiin dhaxalgalka koriimada caruurta waa in aad ku dadaashid waxyaabaha had iyo jeer ilmaha kula korinayo hooyo kastana aad u caawi doono tufaaxan iyo strawberry-ga marka la isku daro iyo lowska noocyadiisa kala duwan waxaa ka soo baxaya halkaas fitamiino dhameystiran ee hooyo walba ka heli doonto markay soo bislaadaan ka bacdi waxaad soo qaadanaydaa blenderka wax lagu shiido ama lagu daqiiqiyo waxaad ku ridanaysaa tufaaxi strawberry iyo lowsaska noocyadiisa kala duwan waad dabooleysaa waad soo shiidaysaa ma fahamteen marka badanaa waxaa ku jiro fitamiino dhameystiran sidaan markaad u karisid waliba karma badan ma kaa rabo 4 daqiiqo 3 daqiiqo camal ayaa dabka ku heynaysaa kadib waa ka dejinay markii aad saan u shiidid waa kuu diyaar beebigaaga maasha Allah tabaaraka raxmaan waad siisanaydaa ka bacdi caana ayaa uga daba marinaysaa maasha Allah wallahi ilmihi la siiyo aad buu uga muuqanayaa kala arag waaye cunugaaga caqligu kaaga koraa ilmaha jismiga bis lagama koriyo gabdho caqliga waa laga koriyaa waxyaabaha ka saacidi kara cunugaaga maskaxdiisa active inay noqoto ayaa la sameeyaa had iyo jeer lafaha ilmaha waa muhiim inay koraan mar walbo qaabkan hadaad ugu sameeyid cunugaaga cuntada maalinku ku gaaro 10 bilood ilaa wixii ka sareeyo kala arag waaye maasha Allah tabaaraka raxmaan waxa uga dhigi kartaa subax quraac ama casho
mana biyeynaysid oo wax adag waaye qaadada kugu soo qaadmaayo. Mushaalada xitaa wax yar wuu ka adag yahay. Haddii jileec aad rabtid oo kale wax yar oo caanaha ku darso ku jilci. Haddii sidaan ay heshidna casho adag oo cunugaaga wuxuu u noqonayaa koriimo fiican uu ka helo. Marka hooyooyinka had iyo jeer waxyaabaha fitamiinaadka ay ka heli karaan caruurtooda waa in ay aad ugu caawiyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen koriimo dhammaystiran ilmahooda oo dhan walba ah. Cunugaaga markuu kuu yahay cunug qurux badan, caafimaad qabo, kaala arag ah, niyadda kugu dhismeedo. Laakiin ilmihii markay xanuuno ka bixi laayihiin, xanuunka Ilaah baa keeno u duceey dadaalna. Dadaalka waa laga marmaan waayo wax aada u dadaalin ma helaysid. Hooyo kasto haddii tiraahdo halkaas unbaa iska fadhinayaa waxba ma qabsanaya niyadda wax ka rabaa. Ilmihii wax ma siinayo wax ma cunayaan in ay miisaankooda kobcaan rabaa ma suuroweyso. Dhaqdhaqaaq waa inaa la timaadid si qaabka rabtay ay kuugu imaadaan. Marka isku day in fadhigaa ka kacdid hooyo kabacdina aad u sameydid caruurtaada cuntooyin isku dheelitiran heer sare ah weliba koriimadooda aad weyn uga qayb qaadanayso xagga maskaxda iyo xagga jir ahaan intaba. Ilmaha markasta bara qaababka cuntada kala duwan oo anfacaada jirkooda u leh in aad kaga qayb qaadataan dhan walbo sida inaad u sameydaan inaad u soo iibisaan kabacdina cunugaaga aad siidid. Hadduuse kaa cunin xitaa wax yar kadib ku celi ilmaha sasab kabacdina wuu kaa cunayaa hadduu Rabbi idmo. Fitamiinaadka shirooboyinka aan soo gelinayay waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka anfacdeen. Gabdho badan aan arkay soo iibsaday maasha Allah tabaaraka raxmaan. Waxaan leeyahay halkaas dadaalkiina ka sii wada mar walbo waxyaabaha aan isdhihi karaa aniga ahaan hooyooyinka aad u weyn ay uga faa'iidayaan halkan iyo barteeda TikTok ayaan soo gelinayaa. Waana rajeynayaa wax badan inay iga faa'iidaan anigana aan iga faa'iido. Waxaan moodaa gabdhihii in ay aad u weyn uga hooseeyaan xagga like inay ii saaraan. Walaalayaal oo like ii saara. Like wax muuqaalada kala wada waaye siina share gareey oo in alla intay taqaanid oo hooyo caruur haysata ah u share gareey. Waxba ma ka dhibayso laakiin aan waxba ii tiraysa waqtiga aan gelinayo mid la mid ah geliya waa iga codsi sababtoo ah wax walbo oo aan soo geliyo waxaan ka sii qaadayaa markaan soo geliyo rabitaan ama in aan soo geliyo waxyaabihii hore waxyaabo ka sii fiican ka tayo wanaagsan marka aad garab istaagtaan. Laakiin haddii bulshada kugu xiran isku garab istaagin wax walbo aad ka cajiseeda. Marka isku day insha Allah muuqaaladan markay soo gaaraan in aad meel sare gaarsiidaan si aan u gaaro meesha aan rabo. Intaasna waxay iga tahay waana walaalnimo iyo garabka aan iga baahnaay in aad garataan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.